الله وعوي هذا ما سنتهاي معمل البلد كان إبرلان وي ولكن وح مترياش الصوماليين ومدة كتير ودن الصومالية ويسكب بدي معمل البلد سيدا ملعيسى أتفكر أنا سنة وعوي إبرلان وقوة عن دولها يسوي قوة عن دولها العين وي ولك السوء دولها يستان مركب دولها قوة سنة ولك السوء دولها يستان دولها قوة سنة رمينا الله معمله waa garta marka meel aad ka talisaan iyo cid aad u talisaan midna ma jirto maamul kasta oo dalka ka jira ayaad la maamuleysaan meelaha uu ka taliyo miya macnaha meeshii gudoomiye ka jiro la gudoomiyaan leenahay nin yiraahdo oo kaas la gudoomiye madaxweyne ninkii ah oo meel madaxweyne ka sheegay la madaxweyne ayaan anagu magacaabanay marka waxa weeyaan gobolada iyo degmooyinka wadanka Soomaaliya meel kasta oo maamul ka jira iyo meel ka jirinba waxa weeye anagu waa ka tirsan waa tahay laakiin Cabdirsaaq waxaad ii sheegtaa magacan Ibrahim mada keenay hindisiisa mise cid kale kula wadaagtay adigu madaxda ururka keentay oo hadda waa dhisan yihiin golayaasha kala duwan ee dawladda waa dhisan yihiin aad bay fara badan yihiin wasiirada hadda waxay sii marayaan 12 kun bay sii marayaan oo baarlamaanku 18 kun buu sii marayaa golaha maamulku wuxuu sii marayaa 850 qof xubnood buu sii marayaa Soomaaliya wax deeqan kara waxa la arkaa maamulkan oo macaabada ugu dhamaanta joogan mise gobolada kale dalka gobolada macaadilada waa joogan dibad iyo daaqil qof Soomaaliya meesha jooga maamulka Cabdirsaaq ururka wax matarayaasha Soomaaliyeed ayaa hadda ka hor afayeen u han jirtay ururkaasi xaguu ku dambeeyay horta ururkii wuxuu ku dambeeyay dawuu xufsiisay macnaha leegalkiisa dawladda u dilaacday oo kale buu ugu dilaacay maamul leegada sida ay dawladda ugu dilaacday oo kale ay ugu dilaacay miya maamul goboleedka Ibrahim marka waa tahay waxaad ii sheegtaa golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda iyo goormaad ku dhawaaqdan idinku tirada cadadka inta leeg waxaan ku dhawaaqnay maalin baxayn baa lagu dhawaaqaa maba kala joogsadaan waa gartay xafladda looga qabtay maalin ba midkii cabasho keenta yaa meesha ay taagan looga dhawaaqay wasiir baad waxay sheegtaa golayaashinu ma dalka ay u badan yihiin mise dibadda dalka iyo dibadda way u badan yihiin oo dalka iyo dibadda aad bay u joogaan oo meel walba waa laga soo codsadaa maamulkan waa maamul dadka Soomaaliya midka doonayeen oo dadka leeyahay weey beesha cabasho keenta oo ka cabata xubnayaasha la siiyay maxaad ku qancisaan waxaan ku qancinaa waa ugu darnaa waa marano oo waxa weeye wax cabasho la inama tusi karaba nalama tusi karaba waxaan uga dhalanay cabashada inaan daweyno waa hagaag bal warbixin waxaad iga siisaa sidee bay arrintan u soo dhaweeyeen maamulada kale dalka ka jira maamul soo dhaweeya Soomaaliya kama jiro waa gartay maamulkii la dhawaaqa midkii kale waa kulli biyo waada weyda wixii balaayo iyo dagaal soo maray waa iga durugbaday waa gartay ma ay jeclaysan marka maamul kale oo ku soo dhawaada ma ay jecla waa tahay laakiin toray su'aal kale haddii aan ku weydiiyo Ibrahim waxaad warbixin iga siisaa dadka xubnaha ka noqonaya golayaasha kala duwan maxaa shuruudaha oo looga baahan yahay qofka Ibrahim ka mid noqonaya in uu markaas uu buuxiyo waxa weeye horta sida aad la socoto hadda ka hor waxaa jiray taariikhda macnaha markii Soomaaliya dib ugu noqoto waxaa jiray maamulo badan oo soo maray oo ay ka mid ahaayeen ST wixii la oran jiray maxaa ka mid ahaa macnaha SSDF UNC USB USNF staff wala soo maray way dhamaatay ma garatan haye alba ku xigtay oo ayadana muddo lagu soo qalaabinayo hadda wali lagu dhex jiraa ma garatay oo macnaha al la yiraahdo al haye waxa hadda haday ayana gaashan laanta waa gartay annagu in laanta laga dhamaataan ka baqnay labadii hore laga soo dhamaatay oo awal nacfi ka weyn oo aan goos ka weyn oo hadda laanta ciidanka ma garan haye waxa weeye marka maamulka iyagu waa hadda maamul shaqeeyo weeye wadanka dhan buu ka shaqeeyaa hadda maamulada la joogto waxay ka cabanayaan leeyihiin waa la shaqeyn waaye waa magciisa waaye waa 100% ayagu 195 waa maamulkan Ibrahim bay taageersan yihiin wax xukumi kara dadka badan waa tahay marka meelaha ay ka dhisan yihiin maamuladaasi xubno ka tirsan golayaashin ayaa ku sugan aad waxa laga shaqeyn waaye oo lug la qaadi lahayd waa maamulka iyaga oo manabada horta ayintiin idinku marka
ما تمنينا وحرمنا أنا نجنا راعو خلاص صور خلاص نلا راعو أنا وحرمنا نلا راعو maxaa rabtaa marka Everland in lagu raaco marka adigu waxaan rabnaa inaan wadanka anagu maamulno nala kaga dambeeyo naloo daayo oo madaxnimada hadda laleeyahay waxbaa la dooranaya anaga naloo doortaan rabnaa maxaa qabanaysaan haddii la idin doorto marka talada dalka waxaan qabanaynaa wixii eber ka hooseeya eber wixii ka hooseeya maxaa la jeedaa waxaan u jeedaa macnaha anagu wax hadda gaar oo dadka u qabanayna horta awal waxaan sheegnay 3 qodob in la ku doorto waa gartay haddii anaga nala doorto waxaan ballan qaadaynaa in dadka xoraan ka dhigno waxaan noo cayimtaa adigu waxaad sheegatay kusimaha madaxweynaha maamul goboleedka Everland waxaana tilmaamtay madaxweynayaashu inay aad u fara badan yihiin maxaad ku dooratay kusimo inaad tahay adigu kusimihii waxaan ku doortay ayaga baa haysaa kuwii madaxweynaha isku sharaxay baa haysta weli ha oo cadadka madaxweynayaasha maamulka Everland waa intee nin walba wuxuu yiri hadda shuruud macnaha ka reebay nin walba ana madaxweynaha yiri inta soo kala haraya baa ku simaaya marka adaa ku sisameymiya ma golayaasha maamul goboleedka Everland baa sidaas ku gartay ma ana ku gartay adaas ku gartay cadadka guud ee xubnaha golaha wasiirada maamul goboleedka Everland waa intee 8 kun ku waran 8 kun waata 8 oo dalay dibada waa tahay golaha baarlamaankuna golaha baarlamaanka 8 kun weey hadda weli baa cadanaya waa 8 kun oo dal iyo dibadba jooga haweenna ay ku jiraan haweenna ku jiraan hadda beela badan cadanaya hadda waxa rabnaa inaan ugu darno oo 8 ay ku saacidaan xafiisyo ma ku leedihiin gobolada Soomaaliya meel walba oo qof Soomaaliya jooga xafiis baan ku leenahay kuraasta meelaha maaragtay maqaayadaha hortooda lagu fariisto maaragtay la gafeeyahay waxa jooga waa baarlamaanka maxaa lagu garan karaa qofka ka tirsan maamul goboleedka Everland marka uu bulshada ku dhex jiro waxaa lagu garan karaa saan badan waa tahay aye badhi ku dhex saan badan baa lagu gartaa ma ka mid tahay shuruudaha inuu aqoon-yahan sheegto uusan isagoo aan aqoon-yahan ahayn awood uusan lahayn inuu ku faano waa midda caanka ay ku yihiin waxa uu sheeganayaa professor buu sheeganayaa magaciisa ma qori karo